kulankan oo dhaxmaray wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwe Fawziya Maxamed Sheekh iyo danjiraha Turkiga ee Soomaaliya ayaa diiradda lagu saaray sidii loo dabageli lahaa heshiisyo horay u dhaxmaray labada wasaaradood ee wada shaqaynta ka dhaxayso Turkiga iyo Soomaaliya. inta kulanka uu socday oo ay goobjoog ka ahaayeen agaasimaha guud iyo madaxda kale ee wasaaradda iyo xubno la socday safiirka ayaa waxa warbixino kala duwan ay islaafsadeen mas'uuliyiintani iyadoo qayb ay ka ahayd xoojinta wada shaqaynta labada dhinac iyo ka jawaabista baahiyaha degdega ah ee xilligani jira maadaama qaybo ka mid ah ee dalka biyo yari xoogan ay ka jirto. agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiwaaxid Ibraahin Axmed ayaa kulanka wixii ka soo baxay warbaahinta ugu warramay. maanta oo ay taariikhdu tahay 24 bishii afraad ee 2019 waxaa shir xafiiska wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ku yeeshay shir uu hogaaminayso wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Marwe Fawziya Sheekh Maxamed iyo wasiir ku-xigeenka oo isagana ahaa meesha isagana joogay oo wakiil wasaaradda joogay. waxa kale shirka kaasi joogay agaasimaha guud iyo dhammaan agaasimayaasha waaxyada iyo la taliyaasha qaybaha kala duwan ee wasaaradda. waxaana shirka kaasi ka qayb qaadanayay shirka kaasi lagu wada hadlayay arrimaha ku saabsan Turkiga. waxaana uu ahaa safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Ambassador Mahmed iyo ku-xigeenkiisii oo Ozan Bakin isagana la joogay. waxyaabaha ajandaha ugu waaweyn ee laga hadlayay shirka ayaa waxa uu ahaa wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha 2016 waxa ay heshiis la gashay labada wasaaradood Turkiga wasaaradda tamarta Turkiga iyo wasaaradda forestryga iyo biyaha labada heshiis oo ku saabsanaa dhanka tamarta iyo dhanka biyaha. heshiisyadaasi ayaa iyaduna laga wada hadlayay. waxaa kale laga wada hadlayay ajandaha ugu weynaa waxay ahayd maadaama dawladda Turkiga ay tahay dawladda ugu weyn ee saaxiibka dhow walaalaha dhow aanu nahay deeqyaha kala duwan iyo kaalmada kala duwan noocyadeeda kala duwan ay Soomaaliya siiso sektorka biyaha iyo waxaan laga hadlayay sektorka energy-ga ama sektorka tamarta. sidaas darteed hay'adda caalamiga ah gargaarka ee dawladda Turkiga ee TIKA iyaduna howlo badan oo biyo ah oo ay ka qabato dalka sida barnaamijka biyaha webiga Shabeelle lagu dayactirayay in dhulkaasi webiga Shabeelle 25 kilomitir dhinaca iyo ka imaanaya Jowhar ilaa iyo balcad soo gaaraya oo looga bixinayay ciidda. barnaamijkaas isagana warbixin ay naga siinayeen. Cabdullaahi Maxamed raadiyaha TV-ga Jubbaland magaalada Muqdisho.